soo dhawaada dhamaan saaxiibayaal ciyaarta Spain iyo Belgium halkan ka daawanaya prediction-ka ay bixiyay wuxuu ahaa half cambeeda koowaad inay ku dhamaa karto double chance Belgium dabcan ciyaarta waxay ku dhamaatay half cambeeda koowaad hal hadda half cambe lagu maqan yahay halka xaysiina kaaga muuqato soo marka waxay ka dhigan tahay 95 ciyaarood 95 ciyaarood prediction-ka bixiyay 96 ciyaarood prediction-ka bixiyay 85 kamida ina guuleystay halka 9 kamida kaliya guul dareystay sababtoo ah game-kan Belgium ka double chance badisa ku helaya oo wana ku helaya oo bareeje gashay daraw ahaana oo u dhigtay sida xalay toolo kala game-ka France X oo labada kooxood ba daraw galayaan half cambeeda koowaad sidoo kalena Belgium ka double chance heli kartaa labadaba dabcan halkaas waan ku helay option kale saddexaad waxa jiro Belgium qualify ka oo ah opinion-kayga oo official aan ahayn waana soo dhigay disclaimer-na waa raacsiyo oo dabcan digniin ah oo kaliya tahay in shakhsiyan taas ani ugu talagalay inaan dhigto almost hadeertaan prediction-kayga maanta waan u noqday ciyaarta half cambe marayso sidaas oo ku dhamaatay ciyaarta Belgium ka halay dhalisay waliba ciyaarta 38 daqiiqo meelahaas ay dhaliyaan kubad cross laga keenay laba gool oo dhanka garbaha ka imaaday ahaayeen kii horna dabcan banaanka la soo dhigay Spain waa goolaa keeperka soo tufay Courtois hadana Fabian Ruiz ku celiyay cunug yarka ee Belgium ka weerarka uu ciyaaray inkastoo ciyaar fiican oo ciyaarin bilowga ciyaarta oo mar raba array in la bedelo laakiin gool fiican uu dhaliyay oo madax waliba si fiican uu la helay goolkiina waa uu dhashtay hadda prediction-keena saas ku guuleystay saasana waan ku